ismaysi dalkeena Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo guddoonkiisa sidoo kale madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaan ugu soo dhaweeyay asagana waa u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo guddigiisii doorashada ee soo daadiyay doorashadan muddadii dheeray sidoo kale dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee deegaanadii ay madaxda ka ahaayeen ayaguna ka soo dhaqangeliyay doorashadan oo baarlamaankan sharafta badan ee muuqaalka qurxoon ee maanta nala jooga ay ka yimaadeen dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantiin waa mahadsantihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu garab taagan yahay sidii aan marar badan oo hore ku celiyay dalkeennu wuxuu u baahan yahay inaan hore u soconno inaan dib u noqonno uma baahna gocasho uma baahna tabya uma baahna waxaan u baahannahay wixii jira ee tabasho ah mustawa kasta alla ekaadeene inaan daaweyno sidii aan maalmo dhaweyto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeeda habeen dhowd aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaan ku idhaahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan oo leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa ilaahay idankiis ee qof walba sida la quman ma yeelin dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyay dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno qalbigeenna aan hagaajinno aan ka fikirno berri yaanan ku mashquulin shalay iyo wixii soo dhacay haddii aan la yidhaaha waxaan ka shaqayn doonaa berri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimo iyo sharaf ku leh adduunka waxaan dhaqan gelin doonaa halhayskaygii ahay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la haddii aan la yidhaaha ubadheer uma istaagin maantana cawadeedii maaha waa isla hadlid iyo khudbooyin waa noo dhiman yihiin mar kale aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa baarlamaanka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalkay garab taagan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynihii iga horreeyay aan xilka halkan kula wareejiyey inuu maanta igu wareejiyana sharafay anigana ii tahay asna waa u tahay dabcan dadka Soomaaliyeedna waa u tahay muuqaalkooda iyo karaamadooda qurxoon aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaanada fadhiisteen madaxda baxaysa madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore ayagaa horumaraya yaan la isjiirin tartiibtii deganaanshaha la muujiyo marka ayaga baxan kadib iyo tartiib u baxaysa xildhibaanada sharafta leh aadaad u mahadsan